السلام عليكم أصحابتي وحنا أصحابتي هور إيلا جوجتا دمانتين بيقولي يقوم لما يدلaya dadka cusub ay kusoo biirin waa mahadsantiin la-aantiin abaar waa maasha allah allah idin barakeey dhammaantiinba insha allah balxa inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun wiilka laxada caawaa la dilay ilaaha u naxariista labadii qof waxaa la dhimatan waalidiinta samariyay baan saadaqa ilaahay ka siiyo allah u naxariisto bal waxayran isla dhegaysana guddoonka xigeenka gobolka banaadir wallaahi yaa buwaaye ilaahu qofna dhiman raba ilaahu waa nagu samey ayagana waalidkan samar iyo iman allah kaasiyo labadan qof waqtigooda dhammaan gacan ka xaq daranaa si dishay uu sheegay afhayeenka ciidanka booliiska waxaa ilaahay mahadiis ah shilkaas nimankii gacan ku dhigliyaasha ahaa ee geystay shilkii xalay iyo shirkii caawa labadaba inaan gacanta ku hayno sida ugu dhaqsiyaha badanna aan u marsiin doono baaritaanka iyo aan u gudbi doono hay-adaha garsoorka ee ku shaqada leh waxaana rajaynaynaa in laga qaado tallaabo tusaale u noqota in askari dambe aanu dadkii loo xil saaray inuu ammaankooda ilaaliyo oo canshuurta iyaga laga qaaday mushaar looga dhigayay aanu sida ka muuqato bajaajtaas aanu xabad sidaas ugu gelinin dadka shacabka ah taas yaan ilaahay maaragtay yaan ballan qaadaynaa waxaan ka xunnahay runtii arrinta xalay dhacday iyo arrinta maanta dhacday labaduba waa laba fal oo aan cudurdaar lahayn cudurdaar male waa qalad dhacay waa qalad amniga ka dhacay waa qalad aan qirsannahay inuu naga dhacay waa ka xunnahay waa ka shalaynaynaa waa ka qoomameynaynaa waxaan rajaynaynaa in aanu mar kala dhicin waxaan codsanaynaa dadka soomaaliyeed waa ka warqabtaan waddankan iyo ciidamadan iyo meesha laga soo bilaabay mararka qaar waxaa dhici kara tababarkii la rabo inaan ciidamadu qabin waa iska qeys kartaan wax badan baa weli naga kala daadsan waxaan gaari doonaa maalin aanay shallakaan oo kala dhicin waxaan rabnaa marka in sidii hore aan u sheegay ayadoon cudurdaar lahayn haddana haddii shirki u dhacay oo qadartii ilaahay ay timid waxa annagana laga rabay waajibaadka honna saarnaa waxay ahayd inaan dambiilayaashaas aan uga harin meel kasta ay tagaan hadda halkaas waxaa uga jeedaan ciidankii oo hadda saacaddan qadaynaya quraac ama qadaan cashadha xalay sida howlgalka loo galay iyagana waa ku ammaanaynaa annaga waxaana laga reebay marka waxay inaan ka daba tag samayno oo aan waxaan leeyahay wallahi wax lagu farxo waa horta nimankii haddii lasoo qabtay maasha allah waa u hambalyeyneynaa soo qabashadooda waxaan leeyahay u hambalyeynay dowladda soo qabatay gacan ku dhigliyaasha dadka dileen horta taasaa muhiim ah in lasoo qabto mideeda kale soo qabano waa soo qabanay gacantaan ku haynaa sidii hore aan u sheeganaa insha allah ciqaab tusaale u noqoto kuwa kale iyay mari doonaa haddii ilaah yidhaahdo إن شاء الله تعالى أردت هذا كدب حل جاري يعني إسكسر دونا أنت هذا الشلل عضي وحأوبضا يقياس يا ملتريجا وحنكلا فدي صدونا ترس كملتريجا أرتاس ما دام دبعت بدن ودين كلو قبو حتى واحد أكرت حبدي وواحد أكرت معنا ويبد هذا وحبدي أنت وصلوا ذي إني ضد كل التان وقعنتي محوها هذا أمني إذا تكون بحن سيقال هذا مركب وحن ربنا هدي لا يرادو إن على أرتاس العد ما شاء الله هذا يقول عصبت إسكري إيسان هو ذا تعين ذا كسر والدين إلهون حريسته والدين تنصبر إيمان الله كسير مر إيمان والد أنت سو كورية أنت سو قاسي عاو عنك وميل له والله على الحماء وين مجلس لكن سمر إيمان الله كسير